kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhawaada daawadayaal warbixinaynu ku eegayno wararkii u dambeeyay xaaladda dalka Itoobiya. Warar cusub ayaa naga soo gaadhaya goobo ay ka socdeen dagaallo aad u xooggan maalmihii la soo dhaafayba oo u dhaxeeya militariga dalka Itoobiya oo xulufadiisa wata iyo sidoo kale jabhadaha midoobay ee TDF iyo OLA. wararka cusub ee na soo gaadhaya daawadayaal ilaa iyo hadda waxaa ka mid ah xogaga Tigreega ee TDF iyo sidoo kale jabhada OLA ee deegaanka Oromia ayaa lagu soo warramayaa toddobaadyo si weyn loogu hoobtay dagaal in ay gacanta ku dhigeen magaalada Mile ee istiraatiijiga ah iskuna xidha magaalada Addis Ababa iyo guud ahaanba dalka Itoobiya iyo waliba dalka Djibouti iyo sidoo kale dalka Eritrea. faahfaahin dheeraad ah ayaynu ka bixin doonaa ilaa iyo hadda warka aynu ka hayno. waxaa kale oo daawadayaal warkeena ku maqli doontaan xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Antonio Blinken ayaa isaguna ku soo wajahan bariga Afrika iyo qaaradda Afrika oo dhan. arrimaha uu socdana waxaa la sheegay in ay ugu horeyso xaaladda dalka Itoobiya oo ka sii daraysa xilli saraakiil ka mid ah militariga dalka Mareykanka ay sheegeen in ay galayaan gudaha dalka Itoobiya. iyadana faahfaahin dheeraad ayaynu ka bixin doonaa hadduu alla idmo. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo waliba siyaasiyiin dibadda ka soo laabtay kana soo jeeda qoomiyadda Axmaarada oo dagaalada galay ayaa waxay sheegeen in dagaalka looga kala baxay Axmaarada. taariikhdu waa 15 bisha 11 2021 ku soo dhawaada daawadayaal qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan aynu ku bilowno. haddii aynu daawadayaal ugu horreynba ku bilowno wararka naga soo gaadhaya deegaanka canfarta ee dalka Itoobiya ayaa waxay sheegayaan in dagaallo lagu hoobtay oo maalmihii la soo dhaafay oo dhanba ka soconayay deegaanka canfarta gaar ahaan magaalada Mile iyo agagaarkeeda in ugu dambeyn ay xogaga Tigreega TDF iyo jabhadda xoreynta Oromia oo saf la ahayd ay gacanta ku dhigeen magaaladaasi. ila kala duwan oo warbaahinta Axmaarada xag jirka ah ay ka mid tahay ayaa waxay xaqiijinayaan in magaalada Mile oo dagaal adagi uu ka socday dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ay la wareegeen xogaga Tigreega ee TDF gacan ku haynta magaaladaasi. Mile waxaa mara jidka halbowlaha u ah Itoobiya ee isku xidha Itoobiya iyo dekadda Djibouti iyo magaalada Casab ee dalka Eritrea. haddii ay sidaas run u noqoto in dawladda Itoobiya jidkaasi laga qabsaday waxa ay noqonaysaa magaalo kale oo istiraatiiji isla markaasina muhiim ah oo gacanta u gashay xogaga duulaanka ee TDF iyo OLA. warar kala duwan oo soo baxaya ayaa arrintaasi xaqiijinaya. Rashid Abdi oo isaguna ah siyaasi ka faallooda arrimaha geeska Afrika isla markaasina u dhashay dalka Kenya ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku soo qoray qoraal kooban oo Ingiriis ah kaasi oo ku sheegayo dhowr toddobaad kadib dagaallo xooggan oo ka soconaya magaalada istiraatiijiga ah ee Mile oo ka tirsan deegaanka canfarta xogaga Tigreega ee TDF ayaa gacanta ku dhigay halkaasi oo sidaas aan uga sii fogeyn deegaanka Soomaalida ee dalkaasi Itoobiya. magaaladani ayaa ah magaalada ugu muhiimsan uguna istiraatiijisan goobaha hadda dirirtu ay ka soconaysay waxaana kala xidhmaya gebi ahaanba dhaqdhaqaaqii iyo ganacsigii ka imanaya dalka Djibouti ee isku xidhayay Djibouti Addis Ababa iyo guud ahaanba dalka Itoobiya. dagaaladii ugu khalaadha iyo xogaga Tigreega ay kala kulmeen magaaladan iyada oo sidani oo kale ay dagaalo khalaadh horay wala soo kulmeen magaalooyin kamid ah deegaanka Axmaarada oo ay kamid tahay magaalada Waldiya iyo sidoo kale magaalada ay inta badan waliba waqti dhan bil ay ka dul dagaalamahayeen ee Deso oo ayaga hadda gacanta ugu jirta. magaaladii saddexaad ee si daran ay ugu hoobtaan dagaallo lagu hoobtayna ay ka dhaceen ayaa waxay noqonaysaa magaaladani Mile oo ka tirsan deegaanka canfarta. ciidamada ka soo jeeda qoomiyadda canfarta ayaa la sheegay in ay dagaaladan si adag u mintideen isla markaasina ay difaacayeen xogaga Tigreega balse ugu dambeystii ayay wararku sheegayaan in magaalada gacanta lagu dhigay. meelo kala duwan ay warkaasi ka soo baxayaan waxaana waliba kamid ah siyaasiyiin iyo waliba qaar kamid ah Axmaarada xag jirka ah oo sheegaya in magaaladaasi gacanta lagu dhigay. maalmihii la soo dhaafay ayaa Axmaarada waxay la kulmayeen dhaliilo aad u xooggan iyaga oo lagu eedeynayay in ayna iyagu dagaalamaynin marka laga tago bootada iyo in ay qoryo qaataan oo iyaga oo aad u tiro badan ay yaacaan. waxaana lagu sheegayay in canfarta oo dad tiro yar ay ciidamadooda mari la yihiin xogaga Tigreega. mas'uul kamid ah Axmaarada oo eedaasi ka jawaabay ayaa waxa uu yiri annagu haddaan wax maaranahay dadka annagu ma yaqaanaan dagaalada noocan oo kala ah. waxaa dagaalada ay nooga duwan yihiin deegaanada canfarta iyo Oromadu waa dad xoolo dhaqato ah oo iska hubaysan waa dad socdo
socda oo orodka iyo socodka yaqaana waa dad weligood qoriga iyo dagaalka arki jiray waa dad xabadda soo dhacda qoriga ay ka dhacday haddii AK47 ama dhashiika amaba qori kale uu yahay kala garanhaya waa dad waxaasi in badan soo arkaya oo ku ilbaxay annaga dadkeennu waa ganacsato waa maalqabeen waa beeraley waa dad aan weligood xabad iyo waxaasi arag waa dad nolol fiican iskaga jiray sidaasi darteed xabaddu qashtay dhahdo inay ay wada dhinteen ayay ismoodayaan oo ay cararayaan taasina waxaa kallifaya dhaqaalaha iyo horumarka waxaa yidhi mas-uul ka mid a mas-uuliyiinta deegaanka axmaarada oo su'aashaasi dhaliisha ahayd ee loo jeedinaya ka jawaabayay si kastaba haddii hadda ay sidaasi rasmi ku noqoto inay magaalada mila ay si rasmiga gacanta ugu gashay xogaga tigreega TDF waa dhabarjabkii ugu xumaa ee mar kale soo gaara dowladda uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed haddaba maxaa u furan oo kale haddii magaaladaasi laga qabsaday dowladda xageeba kale oo wax loo soo marin karaa bal iyadana meelaha kale ee wax la soo marin kara aynu fiirino haddii laga jaro jidkaasi dowladda oo sidaasi looga qabsado kaliya waxaa u furan midka dawan leh ee diri dhaba mara kaasi oo wareeg dheer ah balse kaas laftiisa waa uu xidhmayaa haddii dowladda laga qabsado bundada awaash oo isla deegaanka canfarta iyaduna ka tirsan wax badanna aan ka fogeyn goobaha hadda uu dagaalku ka socdo jidkaasi oo ah jid kaloo asaguna ka imaada dhinaca Jabuuti oo ah jidka dawan leh kaasi ayaa u furan oo soo mara deegaanka Soomaalida qayb ka mid ah iyo dhinaca magaalada Diridhaba kaasi ayaa u furan haddii kaas la waayana ayaa furan oo kale haddii midkaasi la waayo waxaa furan jidka Wajaale ee deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale Somaliland isku xidha ee magaalada Jigjiga halkaasi ka sii mara kaasi oo ay noqon hayso qasab in Ethiopia wixii ay kala soo degi jirtay dhinaca dalka Djibouti oo sidaasi kaga xidhmay oo dhinaca Somaliland dekada magaalada Berbera ay wax kala soo degayso waxa ay la soo degtana uu sii marayo dhammaan deegaanka Soomaalida taas ayaa markaasi u furan kaas hadii laga qabsado laakiin ma jirto meel kale oo dalka Ethiopia wax uga iman hayo waxa ugu daran ugu horeystaba la waayaya haddii sidaasi jidadkaasi lagu qabsado shidaalka oo go'aya diyaaradaha wax duqeynaya gaadiidka iyo wax kasta dadka inta badan arrimaha daraaseeya ayaa waxay sheegeen markii dagaalo sidani oo kale ay soconayaan waxa ugu daran ee u hor dhamaan haya in uu yahay shidaalka waana la dareemi karaa wadan dhan oo intaas la eego 100 milyan iyo dheeraad ay ku nooshahay haddii laga qabsado jidadka ay wax soo maraan ee dekada ku xidha noloshoodu khatar ayay gelaysaa waxaana ay suurtagal noqonaysaa inay kooxaha duulaanka ay dalka qabsadaan haddii xaaladdu sidaas ay ku sii socoto dhinaca kale xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antonio Blinken ayaa laga bilaabo hadduu alla idmo maalinimada berrito oo isniin ah waxa uu booqasho ku tagi doonaa dalalka Kenya Nigeria Senegal waxa uu ku hormari doonaa Kenya oo uu halkaasi kulan kula yeelanayo madaxweynaha dalka Kenya iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dalka Kenya waxaana la sheegay in uu kala hadli doono mas'uuliyiinta dalka Kenya xaaladda iyo colaadaha dalka Ethiopia maanta ayaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta wuxuu ka degay magaalada Addis Ababa iyada isaga oo la soo kulmay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo sidoo kale haweeneyda madaxweynaha ka ah dalkaasi Ethiopia ee lagu magacaabo Zahla World Zawde waxaana uu kala hadlay arrimo ku aadan colaadaha iyo dagaalada waqooyiga Uhuru Kenyatta ayaa waxaa la sheegay in uu fariin ka waday beesha caalamka taasi oo farta ka saaray Abiy Ahmed iyo haweeneyda madaxweynaha ka ah dalkaasi Ethiopia markii uu sidaasi fariinta u gudbiyay waxaa la sheegay in uu soo laabtay Uhuru Kenyatta oo dalkiisa uu dib ugu soo laabtay ninkani markaa maalinimada berrito imanaya hadduu alla idmo dalka Kenya iyo dalal Afrikada ka mid ah ayaa la sheegay in fariimaha iyo waxyaabaha uu la soo kulmay Uhuru Kenyatta uu ka qaadan doono waxaana suurtagal ah in uu u sii gudbo dhinaca dalka Ethiopia haddii ay xaaladdu sidani hadda la tagi karay si aato Mareykanka ayaa isagu horay waxa uu ugu baaqay in muwaadiniintiisu iskaga baxaan gebi ahaanba dalka Ethiopia iyo magaalada Addis Ababa taasi oo dad badan ay ku macneeyeen in ay tahay ha soo galaan xogaga duulaanka ah oo loo sii meel banayn hayo iyada oo dad badan ay qabaan haddii Mareykanka uu diido in xogaga Tigreegu ay soo galaan magaalada Addis Ababa oo wadanka ay qabsadaan oo ay sii wadaan howlgaladooda in ay waxyaabo badan ku adkaan karaan balse haddii Mareykankii uu horreynba asagu uu haraga u lulo uu yiraahdo ha laga baxo oo muwaadiniintiisa iyo cidii kale markaa isgaadhayeenba meesha ka carara uu yiraahday taasi waxay dad badan ay ku macneeyeen in ay tahay taageero muuqata oo uu u muujinayo xogaga duulaanka ah ee Tigreega iyo sidoo kale oola
qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanka axmaarada ayaa maamul goboleedyada ka jira dalka Itoobiya si weyn waxay ugu eedeeyeen inay dagaalada aysan ka qayb qaadanaynin ka soconaya deegaanada axmaarada iyo canfarta ninkan hadda idin muuqanayo oo lagu magacaabo Tamagan Bayane oo ah xubnaha axmaarada u ah hormuudka dhawaanna ka soo laabtay dalka dibadiisa si uu dagaalada uga qayb galo ayaa mar uu maanta warbaahinta la hadlay waxa uu yiri deegaanada kale iyaga oo iska fadhiya ma in ay dhahaan aanu idin taageersanahay ayay rabaan mise waa inay dagaalka ka qayb qaataan oo safka hore ay nala galaan qof iska fadhiya adigii oo dhimanaya haddii uu yiraahdo waan ku taageersanahay waxba kuma tarayso taageeradu waa ta lagula garab taagan yahay waa ta lagula dhimanayo waa ta wax walba lagula qabo laakiin waanu idin taageersanahay dagaalama waxba nagama caawinayso waxayna muujinaysaa inay taageerada ay sheegayaan waxba aysan ka jirin qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo waliba kooxaha xagjirka ah ee qowmiyadda axmaarada ayaa dhaliilo badan u jeedinaya dawladda federaalka Itoobiya ee hogaamiye Abiy Ahmed maamul goboleedyada ciidamada militariga intaasi oo dhan waxa ay ku sheegayaan in ay iyagu qayb ka yihiin duulaanka xooggan ee Oromada iyo Tigreegu ay wadaan iyada oo ay sheegayaan Abiy Ahmed oo dawladda ugu sareeya in uu doonayo in axmaarada la jabiyo waxyaabo badan oo dhowr arrimood oo kala duwan oo marar kala duwan ay isku qabsadeen waa ay jiraan si kastaba axmaaradu waxay u aragtaa in dagaalka lagu beelihiyay aysanna ka aqbalaynin maamulada ka jira dalka Itoobiya waa aanu idin taageersanahay dagaalka sii wada marba haddii ayna soo garab galaynin waxoodu in uu yahay been taageerana aysan u haynin ayay sheegayaan balse hoggaanka ay midowga Afrika u magacaabeen xaaladaha xooggan ee ka jira dalka Itoobiya iyo dagaalada ayaa la sheegay inay rajo xumo uu ka muujinayo dhinacyada ku dagaalamaya waqooyiga dalka Itoobiya in ay joojiyaan dagaalkaasi ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan geeska Afrika ayaa ka digay inay wada hadal aan nabad looga dhalin karin Itoobiya inta uu dagaalku sii socdo una sii xoogeysanayo wuxuuna sheegay iyada oo aan marka hore dagaalka iyo xabadda la joojinin laguma fikirayo inay iyo wada hadal la helo sidaas darteed waa inay marka hore dhinacyada ku dagaalamaya waqooyiga dalka Itoobiya ay dirirta joojiyaan miiska wada hadalkana ay iskugu imaadaan waxa uu sheegay in uu ugu baaqayo in ay dagaalka joojiyaan dawladda iyo waliba dhinacyada kale ee mucaaradka ah madaxweynihii hore Nigeria Olusegun Obasanjo ayaa waxa uu sheegay in uu ku rajo weyn yahay wada hadallo in ay mar u suurtagal noqdaan balse loo baahan yahay in dhammaan dhinacyada ay joojiyaan dagaalka oo uu sheegay in uu yahay mid ay adag tahay joojintiisa haddii xaaladdu sidaas ay sii ahaato dagaalyahanada Tigreega ayaa waxay sheegeen in wax gargoortan ah aysan la gali karin dawladda ilaa maamulka federaalka uu ogolaado inay gargaar bini'aadminimo la gaarsiiyo gobolka Tigreega Addis Ababa ayaa waxay sheegtay in ay tahay in qoomiyadda Tigreegu ay garwaaqsadaan sharcinimada dawladda ayna ka baxaan gobolada axmaarada iyo canfarta si kastaba xaaladda dalka Itoobiya ayaa aad u sii khalaalaanaysa wuxuuna ka muujiyay rajo xumo aad u xoogan wakiilka midowga Afrika ay u direen dalka Itoobiya si wax looga qabto xaaladaha cakiran ee ka taagan dalkaasi dhinaca kale dawladda dalka Djibouti ayaa sheegtay in aysan marna ogolaanaynin in gudaha dalka Djibouti lagaga duulo dalka Itoobiya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Djibouti Maxamuud Cali Maxamed ayaa waxa uu sheegay in dawladda Djibouti aysan ogolaanaynin in dal daris la dalkaasi Djibouti ee gudaha dalkanaga lagaga duulo wuxuuna sheegay in dawladda Mareykanka calaaqad fiican uu dalka Djibouti kala dhaxeeyo isla markaasina danaha labada wadan ay tahay in la wada ilaaliyo balse waxa uu sheegay in marna aysan ka gargoortamaynin aysanna ogolaanaynin in la isku dayo in saldhigga ku yaala gudaha dalka Djibouti ee ciidamada Mareykanku ay leeyihiin ay kaga duulaan Itoobiya taasi oo ka digay uuna cadeeyay in aysan marna ogolaan doonin si kastaba hadalkani ka soo yeedhay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Djibouti ayaa daba socda hadallo ka soo yeedhay saraakiil sarsare oo kamid ah ciidamada dalka Mareykanka oo ugu horeeyo sargaal sare oo kamid ah waliba ciidamada saldhigooda uu yahay dalka Djibouti oo sheegay in ay ka jawaabayaan dhibaatada ka taagan gudaha dalka Itoobiya